Isbitaalka weyn ee Hannibal Health ayaa dhaqan geliyay in calaamada qiblada tilmaamaysa lagu dhajiyo qolalka bukaanka, waxaana arrintan goobjoog ka ahaa madaxda isbitaalka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Guushan maanta u soo hooyatay Muslimiinta ku dhaqan magaalada Minneapolis ayaa waxaa iska kaashaday dhaqangelinteeda maamulka isbitaalka Hannibal, xarunta Open Path Resorts iyo culamaa u diinka masjidka Daarul Hijra ee magaalada Minneapolis. Hagaha qiblada ayaa bukaanka isbitaalka u sahli doono in ay xilligaas ay salaada tukanayaan ay u jeesadaan dhanka ay kabcadu ka jirto ama magaalada barakeysan ee Maka. Sidoo kale waxaa xusid mudan Imaam Sheekh Cabdiraxmaan Shariif waa imaamka masjidka Daarul Hijra oo la shaqeeya isbitaalada magaalada ayaa wareysi uu siiyay Nabad TV waxa uu ka warbixiyay guusha maanta u soo hooyatay Muslimiinta. Isbitaalka HCMC dadka mas'uuliyiinta dhakhaatiirta nursingka oo suura galiyay fududeeyay inaan calaamada qiblada ku dhajino at least 60 qol oo kamid ah qolalka isbitaalka gaar ahaan qaybta emergency la yiraahdo in fara badan dadka aadka u dhiban dadka aadka u muxuu ahaa xanuunada khatarta ah ama accidentiga ama shootinga waxaas oo dhan ay yimaadaan inaan ku dhajino waa tallaabo bilow ah weeye waxaan rajaynaynaa isbitaalka qaybihiisa kale iyo isbitaalada kale inay noqdaan wada ay ku daydaan taas marka waa qayb weeyaan qaybta labaad waxaan rabaa inaan u mahadceliyo dadkii ka soo qayb qaatay xaqiiqatan oo isku dibariday barnaamijkan maxaa jira waxa la yiraahdaa ilmo in la koriyo waxay u baahan tahay magaalo dhan ama tuulo dhan inay iska kaashato marka la sameeyo arrimahan oo kale hal qof ma sameyn karo hal ururna ma sameyn karo marka dad fara badan oo kala duwan inay isu yimaadaan ka qayb qaataan qof waliba wax ku daro waa waxa aan u joogno weeyaan marka imaamyadu way mahadsan yihiin spiritual department ee isbitaalku way mahadsan yahay leadershipka isbitaalka dhakhaatiirtu way mahadsan yihiin meediyaha iyo idinka ka fargareynaya waa mahadsan tihiin waxaan rajaynaynaa inay inoo noqoto tallaabo bilow ah laakiin shaqo badan baa inoo taala marka shaqada waxaan rabnaa inaan wada qabanno haddii Ilaahay yiraahdo waad mahadsan tihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Dhanka kale Sheekh Abu Turaab oo ka mid ah culimada Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota ayaa muujiyay dareenkiisa. ayaan ugu faraxsanahay maanta munaasabadan la isugu yimid oo isbitaalka Hannibal HCMC downtown Minneapolis oo macnaha bilaabay in qiblada directionkeeda laga caawiyo muslimiinta qofka muslimka ah oo isbitaalka ku jira marka uu soo baraarugo ama se qofkii u yimid marka u horeysa ma uu garanayo qibladu meesha kaga aadan tahay qolkaas haddii uu marka weydiiyo qofka neerska ah xagee baan u tukadaa waxa u soo galaysa qofkii neerska ah inuu yiraahdo xagga u tuko ruuxu aad buu arrinta ugu farxayaa marka waana laga caawiyaa haddii kaleeto waxay ku noqonaysaa in uu maaragtay ku wareero oo arrintaas ay dhibto marka waxa weeyaan arrintaas waa arrin aad iyo aad muhiim u ah waana horumar uu sameeyey isbitaalka Hannibal oo ah isbitaalada ugu waaweyn magaalada Minneapolis marka arrintaas waxaan uga mahadcelinaynaa community muslimiinta haddaan nahay dhammaan maamulka isbitaalka iyo cid kasta oo ka qayb qaadatay iyo masaajidka Daarul Hijra. Muddooyinkii ugu dambeeyay ayaa waxaa soo badanaya guulaha taariikhiga ah ee Muslimiinta gobolka Minnesota iyo guud ahaan dalka Mareykanku ay gaarayaan ee dhanka xorriyadda goobaha cibaadada. Asmar Cabdinuur, Nabad TV, Minnesota.